inkastoo aadanaha dunidan dusheeda ku nool uu kala heer yahay qof walibana uu ku nool yahay dabaqaad haddana sidaas oo ay tahay allihii koonkan keenay ma kala jecla oo way u siman yihiin imtixaanka uu aadanaha dunidan inta uu saaran yahay la kulmo waa ay fara badan yihiin haddana waxaa ka gudba imtixaankaas oo guulaysta ruuxii alla tala saarta kuna xamdiya culayska xilligaasi haysta Saynab mahad alla waa hooyo Soomaaliyeed waa hooyo aan haysan wiilii gabar midna oo ku garab istaaga maareynta nolosheeda waxay ku nooshahay deegaanka Xanfarow oo dhaca duleedka degmada Afgooye bulshada Soomaaliyeed kuwooda uu eebbe wax u dhiibay ayay ka codsanaysaa inay ku garab istaagaan dhismaha nusboos ay ku leedahay deegaanka Xanfarow maadaama ay iska bixin karin qarashka kirada guriga ay degan tahay aysan jirin qof u dhaqdhaqaaqa iyada Saynab waxay noo sheegtay in nusbooskan ay leedahay oo ku yaala deegaanka Xanfarow iminka aysan awoodin qarashkii ay ku dhisi lahayd taa beddelkeedana ay waalaha Soomaaliyeed kuwooda eebbu wax u dhiibay ee dalka gudihiisa ama dibaddiisa ku nool ay ka codsanayso inay u dhisaan nusbooska. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مقع إلهي ينكو بالله وعدا يرو إلهي إسيه وحنا رأينا إيد إستين إناد إيد إستان إلهي بان عد صنايا إذا كعد صنايا فاقرت بالنولشة كورا هاركا شخصية دادا أنا وحنا هويني هذا كل قف وحنا هي يعني أن لهين إن جوري ويلتوانا إله بقى وحسته إله بقى وحسته إله بقى وحسته ما إيش اللي يدرس إله عطسنا أنا يدرسان بواسك إله أنت إله عيديس ويجسيه إن اللي هو يعدي قرستان ما كان هو أهان يلا نشاهي ما يقف حد جوري كرابا دجنا إله بقى يقبحيه أنا وكلذي أبدا ما وصلنا ولا كلذي قف هذا أولاد لهم أولاد كلا الأولاد أذن دليل مهلي ست. ويا إن مركب مدو أنت هلا قاعد تقول يا سكرة أدقنت هاي. هذا أنت أدقنها. هذا أنت أدقنها والله إله بقى سعيدة الحمد لله. ممكن نجي كمان تقف جارة أصلا هذا قفي ولا كتير سنة هاي أما محل هذا ده. ما إلهي بقى كنت سام بس إلهي بقى يوهلي إلهي وهلي. ويا مثلا إلهي يوهله. waxaan ku sugan ku la joognaa goofkan ama bartada ay joogno booska gaar ku leedahay sida noo muuqato waxaan noo sheegtay inay tahay gurigaaga iyo halka aad ku hooyanaysay meesha kaliya maanta haysato alxamdulillah ilaahan kuma hadiyo bal marka codsiga aad jeedinayso iyo waxa aad jeclaan lahayd in bulshada Soomaaliyeed ay ku qabtaan ilaahay ciidiisa meesha uga sii in la dhiso un hooy in la iga dhiso wata dawada halka aan kala soo hadlayno waa deegaanka Xanfarow oo dalka degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose halkan aan ku sugan maama xilligan aysan jirin wiil ay dhashay ama gabar ay dhashay oo garab istaagan waxa imaamada intaan joogna ay noo sheegtay in xaaladeeda nolosha iyada ay tahay mid shakhsiyadeeda ay dabarato iminkana ay degan tahay guri kira oo aysan jirin guriga ay degan tahay kirada ah cid ka bixiso iyo sidoo kale cid iyada bil gaara meel u saartay taas iyadoo si gaar ah kaga duuleyso ay waaraha muslimiinta waxay si gaar ah kaga codsanaysaa in halka ay kala soo hadlayo oo ah nusboos yar oo ay ku leedahay deegaankan ay waaraha muslimiinta ah kuwooda Ilaah wax u dhiibay ay ku codsanaysaa in halkan ay ugu dhisaan guri si ay ugu hoyato maadaama ay tahay halka kaliya iyadoo ay leedahay guri kira ama ijaar inay bixisana awoodeeda aysan dhamayn aysan jirin goob ay u shaqo tagto iyo wiil iyo gabar midna u soo faqo waxa la yiraahdaa wax idin ku tara aysan jirin ay hadna si gaar ah idinku waxay ka codsanaysaa inaad u dhistaan gurigeeda halkan ku yaala iyo booskada yar in loo dhiso oo waxa la yiraahdaa guri iyo hooy ay ku hoyato halkan loogu dhiso maamadu waxay leedahay lambarada idin muuqda oo shaashada aan ku soo qori doono oo ay si gaar ah aad kula xiriiri kartaan maamada haddii aad u baahato inaad soo booqato halka ay ka degan tahay deegaankan Xanfarowna waxaad soo gaari kartaa deegaanka Xanfarowna soo raacaysa halkan ku keenaysa adigoo kala soo xiriiraya lambarada iyo ciwaanada shaashada